Bismillaahi Raxmaani Raxiim halkani waa Sahan Academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wali waxaanu ku guda jirnaa course-kii aynu ugu magac darnay ee biology oo markaasi ah course aynu ku baranayno maadada biology-ga gaar ahaan mid aynu ku baranayno form 4 ama fasalka afraad ee dugsiga sare waxaan maraynaa lesson 36 oo markaasi ah cashirka 6 iyo 7aad cashirkana waxaynu kaga hadlaynaa waa the nucleic acid waxa la yiraahdo nucleic acid waxa la yiraahdo ayaana cashirkan ku qaada dhigi doona waxaan filayaa marka 5 iyo 30kii cashir aynu horay u soo daawanay in si fiican loo fahmay hadii ay jiraan su'aalo ku saabsan 5 iyo 30kaas cashirna waad ina soo weydiin kartaa WhatsApp inaga soo hadli kartaa ama email idin soo diri kartaa adigoo emailkaaga cinwaan uga dhigayo qaybta aad rabto inaad su'aal inaga weydiiso sidoo kale waxaan filayaa talooyinka aan ka jeediyay muuqaaladii hore ee 5 iyo 30ka ahaana in la qaatay ama hadii kadib la qaadan doono taa uu ku saabsanayd in cilmigan waxyaabo badan oo ku saabsan la raadiyo aan gudaha u gal marka course-ku waa biology aynu ku baranayno form 4 ama fasalka afraad ee dugsiga sare lesson 36 oo markaasi ah cashirka 6 iyo 7aad waa the nucleic acid ayaan markaas uga hadli doonaa marka hore aynu fikrad guud ka qaadano wax la yiraahdo nucleic acid waxa la yiri deoxyribonucleic acid oo DNA laga soo gaabiyo iyo sidoo kale ribonucleic acid oo RNA laga soo gaabiyo ayagu waxay yihiin labadoodaba oo DNA iyo RNA yani labadoodaba are nucleic acids waaye waa nucleic acid-ka laga hadlayo waa ayaga si wada jir ah DNA-da iyo RNA-da oo isku wada jira ayaga waynu qaadan doonaa DNA iyo RNA ayagoo faahfaahsan si wada jira ayaa waxa lagu magacaabaa nucleic acid ayaa loo yaqaanaa so marka ayaga make up waxay ka sameeyeen ama made up waxay ka sameeyeen structural unities qaybo dhisan ay ka sameeyeen kuwaas oo lagu magacaabo nucleotides ay markaas ka sameeyeen macnaheedu waxa waaye deoxyribonucleic acid oo DNA-da isaga wuxuu ka kooban yahay yani gudihiisa marka la fiiriyo waxyaabaha uu ka sameeyeen yahay wax la yiraahdo nucleotides ay marka la yiraahdo ribonucleic acid-ka isagana wuxuu leeyahay nucleotides isaga markaas gaar u ah marka nucleotideskaas laga helo DNA-da ama RNA iyo sidoo kale RNA-da laga helo that are linked together kuwaas markaasi ah kuwa si wada jira isugu xiran waxaana isku xira by a covalent bond yani dabar markaasi isku mid ah ayaa markaasi isku xira waxa la yiraahdo nucleotideska ay leeyihiin nucleic acids oo DNA iyo sidoo kale RNA ah so hadii aynu fiirino kani waxa waaye waa chromosomes waaye chromosomeska marka waxa lagu magacaabaa kan hadda tusaale waxa la yiraahdaa waa deoxyribonucleic acid waaye waxa waaye DNA waaye ilaan labo waa mid dhameystiran waaye malakan ribonucleic acid waa mid kaliya waaye marka DNA-da thioamine oo kale waxa waaye waxa uu leeyahay waxa la yiraahdo base pair ayuu leeyahay yani joog oo sal ah ayuu leeyahay hada tusaale kan waa joog waaye waana waxa uu DNA-da ayuu markaas base u yahay kan waa joog waaye oo waxa waaye laba shay waaye midabada way kala duwan yihiin waad fahmi kartaa so marka kuwaasi waxa lagu magacaabaa base pair ayaa markaas lagu magacaabaa meesha ay markaas labo RNA ku kulmaan waxa la yiraahdaa helix of sugar phosphates ayaa markaa lagu magacaabo yani meeshan sidoo kale dhankan kale yani meelaha ay ku kulmaan waxa la yiraahdaa helix of sugar phosphates ayaa la yiraahdaa so marka sabirkan waxa lagu magacaabaa DNA ama deoxyribonucleic acid ayaa markaas lagu magacaabaa marka gudahooda waxa ku jira oo base pair-ka ah mid waliba waa nucleotides ayaga markaas u taagan ama nucleobacid ayaa markaas lagu magacaabaa kuwani waxa waaye waa RNA waaye ama ribonucleic acid waaye hadaynu tagno waxa la yiraahdo DNA-da waxay ka sameeysan tahay ama base pair-keeda midabkan waxa u taagan waa thioamine waaye waynu qaadan doonaa midabkan kale ee markaasi kani ah waxa u taagan cytosine midabka kale ee markaasi yellow-ga ah waa adenine midabkan kale ee markaasi green-ka ana waxa u taagan waxa la yiraahdo guanine marka kuwani oo thioamine cytosine adenine iyo guanine kuwani waxa la isku dhahaa nucleobases oo DNA-da ay leeyihiin ayaa markaas lagu magacaabaa so marka nucleobases oo DNA-da uu leeyahay waa thioamine cytosine adenine iyo sidoo kale guanine way hadii aynu tagno dhanka iyo RNA-da wuxuu leeyahay uracil sidoo kale wuxuu leeyahay cytosine wuxuu leeyahay adenine wuxuu leeyahay guanine so marka afartanine
waxaa la isku dhahaa waa nucleobasiska ama nucleobasiska ama salka nucleuska uu markaas uu leeyahay RNA-da ay leeyihiin ayaa markaas kuwan ay yihiin waa uracil, cytosine, adenine iyo sidoo kale guanine. Markana waxaan aadaynaa nucleotides wax markaas la yiraahdo. Waxaa la yiri nucleotides ayagu are the building units of nucleic acid, qaybaha dhisa nucleic acids-ka laga helo DNA-da iyo RNA-da laga helo waxa dhisa ayaa waxa lagu magacaabaa nucleotides ayaa markaa lagu magacaabaa. Qaar waa nucleotides-ka waxay gaar u yihiin qaarkood DNA, qaarna waxay gaar u yihiin RNA ay markaasi gaar u yihiin. The biochemist ninkan biochemistry-ga takhasuska u leh ee la yiraahdo Levin la yiraahdo determined waa uu kala soocay waxa uu kala soocay waxa weeye nucleotides-ka ayuu markaasi kala soocay the basic structure yani isagoo sal uga dhigayo qaab dhismeedka oo nucleotides-ka wuxuuna u kala soocay at flow sida soo socda ayuu markaasi u kala soocay. wuxuu yiri 5 carbon sugar 5 carbon oo markaasi sugar ah oo carbon iyo hydrogen laga helo oo pentose sugar ayaa la yiraahdaa. hadii markaas sokortan ay ka kooban tahay 5 carbon wax la yiraahdaa pentose sugar ayaa markaa la yiraahdaa. so marka pentose sugar ka ama 5 carbon sugar ka waxa uu markaas ninka la yiraahdo Levin uu sheegay there are waxa jira 2 types laba nooc of sugars ee sokor ah that are found kuwa soo laga helo in the structure qaab dhismeedka oo nucleic acids-ka marka laga hadlayo laba nooc oo sugar ayaa markaas laga helaa. mid waxa la yiraahdaa ribose sugar midna waxa la yiraahdaa waa deoxyribose sugar ayaa markaa la yiraahdaa. ribose sugar ka ayaga which are found waxa laga helaa structure of RNA ayaa laga helaa ama laakiin deoxyribose sugar ka ayaga waxa laga helaa waa structure of DNA ayaa markaas laga helaa. so marka ninka Levin lagu magacaabo pentose sugar oo 5 carbon sugar ka ah ayaa wuxuu u qaybiyay laba qaybood isagoo markaas ka fiiriyay structure-koodii iyo meesha laga helo. ribose sugar waxa waaye waxa laga helaa RNA ama laakiin deoxyribose sugar ka ayagu waxa laga helaa waa DNA-da ayaa markaa laga helaa. phosphate group ayaa wax la yiraahdo ayaa jira koox oo phosphate ah ayagu this kuwani waxay ku xirmaan to carbon 5 of sugar shantan carbon oo pentose sugar ka ah ay markaasi ku xirmaan oo moleculeska oo 5 carbon ka ah oo loola jeedo maxay pentose sugar ka loola jeedo with a covalent bond ayayna markaasi isku xiran. nitrogenous bases waxa la yiraahdo ayaa jira nitrogenous bases kuwa salka waay. these are kuwan waxay yihiin adenine oo A laga soo gaabiyo, guanine oo G laga soo gaabiyo, cytosine oo C laga soo gaabiyo iyo thymine oo markaasi T laga soo gaabiyo. kuwa marka found in waxa laga helaa structure of DNA ayaa laga helaa waa deoxy maxay kuwii aan soo sheegaynay waay deoxyribose sugar kuwii aan dhehayni waay oo marka aynu qaybinaynay nucleic acids-ka meesha laga helo qaar waxa laga helaa maxay deoxy ama DNA-da ayaa laga helaa wax lagu magacaabo deoxyribose sugar ayaa lagu magacaabo halka kuwa RNA-dana markaasi lagu magacaabo ribose sugar ayaa markaa lagu magacaabo. so marka kuwan waxa lagu magacaabo nitrogenous base ee la yiraahdo waa adenine, guanine, cytosine iyo thymine. marka afartan waxa laga helaa DNA-da ayaa laga helaa. uracil isaga is found in waxa laga helaa structure of RNA ayaa laga helaa in sid bedelka oo thyaminka yani waxa waaye thyaminka waxa bedel u ah uracil ayaa bedel u ah macnaheedu waxa waaye RNA-da waxa laga helaa adenine, guanine, cytosine iyo uracil ayaa laga helaa halka waxa la yiraahdo nitrogenous-ka uu gaar leeyahay thymine ayuu gaar leeyahay ama laakiin waxa la yiraahdo maxay DNA-da waxay gaar la tahay thymine halka RNA-dana ay gaar la tahay waxa la yiraahdo uracil ay gaar la tahay. so marka waxa la yiri nitrogenous bases ayaga bend waxay ku xirmaan to carbon 1 of the sugar mid kamid ah carboniska aynu soo sheegnay ay markaasi ku xirmayaan. the nucleic acid marka are different way kala duwan in type nooca of pentose sugar sokorta pentose la yiraahdo shanta carbon ka kooban and the types iyo noocyada oo nitrogenous bases kooda marka laga hadlayo way kala duwan yihiin yani qaar ba oo kuwa DNA-da waxay leeyihiin waa adenine, guanine, cytosine iyo thymine ama laakiin kuwa RNA-da laga helo waxay markaasi leeyihiin yani bedelka waxa la yiraahdo thyaminka waxay leeyihiin uracil oo inta kale way ku siman yihiin oo ah adenine, guanine, cytosine waxa markaasi siyaado u ah oo thyaminka meesha ka baxayo bedelkeeda soo galayo waxa la yiraahdo uracil ayaa soo galay. nitrogenous base aynu fiirino qaybtan waxa la yiraahdaa waa RNA nucleotide ayaa marka lagu magacaabo halka qaybtan lagu magacaabo DNA nucleotide. so marka phosphate group way waxa hadda aynu ka hadlayno
intan oo dhan way markaasi ku siman nitrogenous base-ka oo hadaynu imaano pentose sugar-ka oo maxay RNA da laga helo ribose sugar ayaa markaa lagu magacaabaa nitrogenous base-kooda wuxuu noqonaa waa adenine guanine ama adenine cytosine guanine iyo uracil waa RNA nucleotide kuwa sokorta ay leeyihiin ribose sugar ayaa markaa lagu magacaabaa ama pentose sugar-ka oo 5 carbon ka kooban ay leeyihiin waxa lagu magacaabaa ribose sugar RNA nucleotide ayaa markaasi la yiraahdaa soo marka nitrogenous base-kooda wuxuu noqonaa adenine cytosine guanine iyo uracil ayuu noqonaa ama laakiin deoxyribose-ka pentose sugar-ka oo deoxyribose-ka kuwa ah waxa waaye waa DNA da kuwii markaasi aan dhahaynay way ayaga meesha uracil-ka ay RNA da ay ku leeyihiin waxay leeyihiin wax la yiraahdo thiamine meeshas kaliya ku kala duwan yihiin soo marka nitrogenous base-ka oo DNA nucleotide ku leeyahay wuxuu noqonaa waa adenine cytosine guanine iyo sidoo kale thiamine ayuu noqonaa maadaama uu DNA uu yahay markan waxaan aadaynaa waa DNA wax markaas la yiraahdo DNA molecule markaan ka hadlayno deoxyribonucleic acid ki waaye molecule-ka DNA da isaga is composed of wuxuu ka kooban yahay 2 strands chains waaye silsilado which are twisted with one another yani kuwaasoo yani kuwa kale ee ku xiran waaye waxaana lagu magacaabaa DNA double helix ee la yiraahdaa sawirkii hore ayaan markaas ku soo aragnay each strand marka each chain waaye yani silsilad walba ismeed waxay ka samaysan tahay nucleotide ay ka samaysan tahay oo adenine guanine iyo markaasi cytosine ah kuwa RNA da waxa gaar u ah uracil kuwa DNA da ana waxa gaar u ah thiamine which are linked waa taraafir kuwa soo isku xiran together si wada jir ay isugu xiran yihiin waxaan isku xira wax la yiraahdo phosphodiester wax la yiraahdo ama dabaro la yiraahdo phosphodiester ayaa markaas isku xira nucleotideska marka ay leeyihiin 2 strands ay leeyihiin bind waxay ku xirmaan with each other midka kale ay markaas ku xirmaan waxaana markaas fududeeya dabar la yiraahdo hydrogen bond ayaa markaas fududeeya hadaynu fiirino kuwani waxa waaye strandska ama chainska aynu sheegaynay waa qaybtan ayaa marka la yiraahdaa pairs-ka gudaha ay ku jiraan hada tusaale sugar ribose oo bag ah qaybta dambe waxay noqonaysaa guanine cytosine guanine kuwani dhexda ah waxa lagu magacaabaa waa base pair kuwa la yiraahdo soo marka G-du waa guanine C-du waa cytosine T-du waa thiamine A-du waa adenine soo marka kuwani waxa la yiraahdaa maxay wax la yiraahdo nitrogenous base maadaama thiamine ay ku jirto waa DNA way kuwa RNA da ah booskan thiamine-ta ah waxa markaasi bedel u ah wax la yiraahdo wax la yiraahdo uracil ayaa markaasi bedel u ah markan waxaan aadaynaa muhiimada nucleic acid-ka ay leeyihiin the nucleic acid marka oo DNA da uu leeyahay is the main component waa qaybta ugu muhiimsan ee uu ka kooban yahay chromosome-ka uu ka kooban yahay ama hiddo-sidaha and it's responsible wuxuu mas'uul ka yahay for determining in la kala sooco the inherited traits waxa markaasi laga dhaxlay yani waalidka laga dhaxlay ama noolaha kale laga dhaxlay and it is transmission iyo gudbinta from one generation laga gudbinayo hal jiil to another jiil kale loo gudbinayo the DNA marka DNA da markaan ka hadlayno also regulate sidoo kale waxay nidaamisaa vital activities hawlaha asaasiga oo ay leeyihiin of cells ay leeyihiin unugyada through ayagoo markaas u maraysa what is known as waxa loo yaqaan genes iyadoo u maraysa ay markaas regulation kaasi samaysa the gene marka gene-ka is a part of DNA wuxuu qayb ka yahay DNA da which has a special sequence of nitrogenous bases kaasoo leh yani waxa waaye taxanayaal ama waxyaabo isku xiga oo gaar ah oo nitrogenous bases gaar ayuu leeyahay kuwaasoo represent ku ah isaga matalayo yani specific trait-ka ama waxa la dhaxlay ee gaarka ah yani bedel markaas u ah and has waxay leeyihiin specific location meel gaar ah oo the chromosome yani halkii chromosome yani nitrogenous bases-ka waxay ka leeyihiin meelo gaar ay ka leeyihiin the nucleic acid-ka oo markaas uu leeyahay RNA da ay leedahay exists wuxuu u jiri karaa in 3 types saddexno messenger RNA oo mRNA laga soo gaabiyo transfer RNA oo tRNA laga soo gaabiyo iyo ribosomal RNA oo RNA markaas laga soo gaabiyo these types marka noocyadan oo nucleic acid-ka ay leeyihiin RNA da markaasi ay u qaybsamaan saddexda ah waxa la yiri half waxay leeyihiin major role ay leeyihiin door aad u weyn in the expression marka la rabo in la cadeeyo of inherited traits waxyaabaha la dhaxlay through iyadoo loo marayo maxay the formation of proteins iyadoo markaasi loo sameynayo wax la yiraahdo proteins waxaan filaa markii cashirkan wax badan laga fahmay markan waxaan aadina questions oo markaasi su'aal cashirka su'aashooda waxay ku leedahay define waxaad qaadaa nucleotide su'aasha labaad waxa la yiri what the nucleotide
nucleotides are made up nucleotides markaan ka hadlayna ayaga maxay ka samaysan yihiin su'aasha saddexaad waa la differentiate waxaad kala socdaa ribose sugar iyo sidoo kale deoxy ribose sugar yani mid walba meesha laga helo sheeg way su'aasha afraad waxaa la yiri state waxaad sheegtaa nitrogenous basis yani waxa way nitrogenous basis-ka aan soo sheegnay sheeg iyo sidoo kale where is found inta laga helaa yani kuwa markaas DNA-da laga helay iyo kuwa RNA-da laga helay sheeg way the DNA-da markaan ka hadlayna iyada markaas possible waxay mas'uul ka tahay forward maxay mas'uul ka tahay su'aasha lixaad ee ugu dambeysana waxa la yiri nucleic acid-ka uu leeyahay RNA-da ay leeyihiin waxay u jiri karaan 3 types saddex nooc what are they maxay kala yihiin waxaan filayaa markii casharkan si fiican loo fahmay inta idinku soo gabagabeynayna casharkan inta idinku kulmi doona casharkan casharka xiga waxaan idinkaga tagaynaa sidaa nabadiino assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh